magaalada Cadaado gobolka Galgaduud ee bartamaha dhulka Soomaaliya oo aan booqasho ku joogno waxaa ka jirta koboc dhinaca waxbarashada diiniga ah. waxaa halkan ka furan madaaris gaar u ah barashada diinteena suuban ee Islaamka. madaaristaas waxaa ka mid ah madrasada Mucallim Nuur ee loogu magac daray mucallimkii weynaa ee Quraanka ku anfacay deegaanadan ee Mucallim Nuur cilmi cawaale Allah u raxmade. waana faraca labaad ee madrasada. waxaa halkan lagu bartaa qaybaha kala duwan ee funuunta diinta Islaamka sida tafsiirka, xadiidka, fiqhiga, tasawufka, naxwaha, mantiqa, balaaqada, sarfiga, caqiidada Islaamka iyo culuum kale oo aad u fara badan. madrasadan waxaa gacanta ku haya caalimka da'da yar ee Sheekh Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo kadib markii culimadu uu ka soo bartay funuunta kala duwan ee diinta Islaamka hadda sii faafinaya. xilliga aan imaanaynay madrasada waxaa ka socday casharada joogtada ah ee ay bixiso madrasada. الإجارة هذه أحكام الإجارة wuxuu u baab yahay axkaamtii ijaarada. waxaan ku soo jirnay rubicii labaad ee kitaabul bayc oo ah kitaabkii mucaamalaadka. darsigeenu marka wuxuu noo marayay ijaarada marka wuxuu leeyahay al-ijaaratu hadhihi midatani ahkaamul ijaarati. ijaaradii axkaamteedii iyo xugumyaalkeedii weeye. ijaaradu marka waxay u qaybsantaa laba qaybood. ijaara mid waxaa la yiraahdaa ijaaratul ayn, ijaarana waa ijaaratu dhimma oo tusaale ahaan inuu yiraahdo kale alzamtu dhimmataka an tahmilani almataa'a. tusaale ahaan inuu yiraahdo dhimadaada waxaan ku laazimiyay inaad alaabtan ii qaado oo alaabtan meel hebla aad ii geyso. waa ijaaradaas oo kale waxaa la yiraahdaa ijaaratu dhimma. qofka dhimadiisa ayaa la kireysanayaa. ijaarana waa ijaaratul ayn. labadiiba marka tacriif guud ayuu ka bixin rabaa. الإجارة marka wuxuu yiri ijaaradu luqatan xagga luqada ismun waa isim oo lil ujrati ujrada u sugnaaday. ijaarada ujrada ka soo xasilayda ujradaas magac isim u sugnaaday baa luqada carabeed loo yaqaan ijaaro. wa sharcan xagga sharcigana aqdun wa aqad oo ala manfaatina lagu aqatamo manfaacadaas oo macluumatin la yaqaano. manfacadaasoo maqsuudatin loo qasdaayo. manfacadaasoo qaabilatin aqbalaysa lilbadli dhiibitaan iyo walibaaxati bannayn. biciwadin ciwad ayaana maaragtay lagu caqatamaya ciwadkaasoo macluumin la yaqaano. tacriifka ama xadka guud ee ijaarada waa midkan. waa in caqad la sameeyo. waxaa lagu caqatamaya waa manfaco macluumo ah, shay dheeftiisa manfacadaas oo weliba macluumo ah. manfacadaasuna waa manfaco inay noqotaa maqsuudo ahoo manfaco oo maaragtay loo qasda waa inay noqoto oo manfaco waxaa jira aan maqsuudo ahayn waay. waxaa kaloo la rabaa inay manfacadaasi noqoto qaabilatin lilbadli. manfaco qofkii uu dhiibi karo oo bixin karo waa inay tahay qaabilatin lilbadli walibaaxati. weli labadaasoo badlina waa inay aqbalayso dhiibis, ibaaxana way aqbalayso. in qofkaan uu milki u leeyahay shayga uu ibaaxo uu kugu samayn karo ku dhihi karaa shaygaa ku tasarruf manfacadaas. manfacadaasna wuxuu uu kuugu banaynaa maxay tahay biciwadin macluum. waa qarash la yaqaano ciwad macluum ah waay. marka tacriifka guud ee jaamica ee maaragtay ijaaradu marka kaasuu noqonaya waa caqdun waa caqad calaa manfacatin baa lagu caqatamayaa. manfacadaasoo macluumatin la yaqaano. manfacadaasoo maqsuudatin loo qasdayo. waayahay waxaa ku baxayd haddii maqsuudo ayna ahayno tufaaxii iyo laymuunkii oo kale tusaale ahaan ayaa shaygii la isku ijaartay. taasoo kale hadda manfaco way tahay laakiin manfaco macluuma aysan maqsuudo aysan ahayn waay. weliba taasoo qaabilatin aqbalaysa lilbadli dhiibitaan inuu qofkii wixii dhiibo iyo walibaaxati bannayn. biciwadin ciwad ayaana lagula caqatamayaa ciwadkaasoo macluumin la yaqaano. cashirka kadib Sheekh Cabdinaasir oo isagu maamulo madrasadan ayaa faahfaahin ka bixiyay howlaha madrasada. darasada waxaan bilownay madrasada afartii Jumaadul Uula 1447 oo waafaqsan 25 Oktoobar 2025. markaas oo hadafka madrasada aan u aasaasnay uu ahaa macnaha loo bilaabay hadafka madrasada loo bilaabay uu ahaa jamci la kulmiyo xalaqaadkii cilmiga iyo nidaamigii
oo labadiiba ardaygii oo xalaqadiina ka dhisan nadaami ahaanna maaragtay casharadiisi casharo toosan yihiin casharo isla socda ay yihiin casharo maaragtay min awal ilaa aakhir xilligay bilaabanayaan iyo xilligay dhammaanayaan iyo maaragtay mustawayaad kala duwan mustawa ibtidaa'iya iyo mustawa dhexe iyo mustawa sare intaba kala leh jamcigaas marka awgeed in maaragtay dulaabta iyo dadku ay ka faa'iideystaan meesha waxaan marka madrasada waxyaalaha lagu dhigto waxaa ka mid ah oo marka koowaad ba ardayga markii la yimaado loo bilaabo fanniga naxwaha ayaa loo bilaabaa iyo fanniga fiqhiga labadaas iyo fanniga caqiidada saddexdaas marka koowaad ardayga waa loo bilaabaa si caqiida ahaan ardayga arday u dhisan uu noqdo caqiidadiisii khaaliqii subxaanahu wa tacaala iyo ambiyadii iyo caqaa'idkii intii fudfudud marka koowaad maadaama ardaygii bilow uu yahay ayaa loo bilaabayaa si caqiidadiisu ay u hagaagto si haddana maaragtay salaadiisu ay u hagaagtana waxaa loo bilaabaa fiqigiina waa loo bilaabayaa saddexdaas baa marka fiqiga iyo fiqiga iyo naxwaha iyo ardayga waxa u wada soconaya iyo caqiidada marka ardaygii markuu mustawihiisii soo koro marba fannigu usii gudbaya markuu hadda naxwihii oo kale ardaygii heer ka soo gaaro wuxuu sii baranayaa funuuntii carabiga oo kale hadday balaaqadii tahay hadday adabkii carabiga ahaa tahay haddii ay tahay mandiqii adaabul baxthigii waxaas oo dhan buu sii baranayaa jaanibka kale haddii tahay fiqigana ardaygii fiqigii markuu barto fiqigii mucaasirka ahaa ayuu asagiina sii baranayaa iyo fiqhu nawaasil dhammaan ayuu baranayaa sidoo kale tasawufkii iyo cilmigii maaragtay culumta carabiyada oo dhan baa way isla socdaan ayagu marka tasawufkii iyo cilmul xikma iyo culumtaas oo dhan ayaguna way ku jiraan sheekh cabdinaasir oo sii hadlayay ayaa sheegay in dhowaan madrasadu ay qaadan doonto fasallo cusub oo bilow ah si dadka ay uga faa'iideystaan madrasadan sidoo kale insha allahu tacaala waxaan qaban doonaa arday kale oo cusub oo ayaguna maaragtay icdaadka iyo bilaabinta mustawihii koowaad loo soo bilaabi doono maadaama uu noo dhammaaday mustawihii koowaad mustawihii la hadda bilowday arday cusub oo mustawaha koowaad insha allahu tacaala ayagiina soo bilaaban doona ayaan waqti muxadada ayagana qaban doonaa insha allahu tacaala ugu dambeyntii waxaan la hadalnay qaar ka mid a ardayda wax ka barata madrasada waxaana ay muujiyeen siday ugu faraxsan yihiin waxbarashada ay ka heleen madrasadan anoo ah magacaygu yahay Faysa Faarax Cumar dhigta madrasatu Macallim Nuur Asaani madrasada waxaan ka soo aaday dhinacaas waa beri waliba meel aduu masaafo magaalada ka fog meelaha goobaha waxbarashadu saayid igu fogeed caqabad badan nagu eed way naga fogeed madrasadan markii la dhisay waan ku soo biiray iyadoo ii dhowdahay waxaan bartaa naxwe fiqhi labadaas maadaan hadda ka bartaa sidoo kale afka carabiyada waa ka bartaa si fiican ay anfacda aan ahaantayda أنا مقعد حبسي عبدي محمد oo dhigata madrasatu Macallim Nuur Asaani waxaan ka dhigtaa cilmooyin kala duwan hal san intii ka yaran dhiganaya si fiican ay anfacday sanad ka yaran dhiganayay wax badan aan ka faa'iiday wayna ku mahadsan yihiin macallimiinteeda dhammaan 4 sano oo kaliya ah ayaa ardaygu uu kaga qalin jebin karaa madrasadan isagoo ka dhisan dhammaan funuunta kala duwan ee diinta islaamka